bishii 10aad shanteedii 2021 waxaanu halkan bulshada weynta reer Gabiley iyo Somalilandba ugu soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadisa oo aanu ku dalbanay 7 xildhibaan oo ah aqlabiyada golaha deegaanka degmada Gabiley sababaha aanu cuskanay xilka qaadista maayarka waxa weeyaan 10 qodob oo kamida qoraalka sidaad arki doontaan maayarku wuxuu jabiyay qodobka 9aad farqadiisa labaad ee xeer number 23 wuxuu jabiyay qodobka 19aad farqada koowaad ee xeer number 23 wuxuu jabiyay qodobka 13aad farqadiisa koowaad iyo labaad ee xeer number 23 wuxuu jabiyay qodobka 14aad farqadiisa A iyo F iyo D ee xeer number 23 wuxuu jabiyay qodobka 100aad ee xeer number 23 wuxuu jabiyay qodobka 17aad farqiisa afraad ee xeer number 23 waxaa soo qodoba oo ah kuwa maaliyadeed oo ah kuwa sharci intaba maayarku uu jabiyay waana sababihii laga qaadi lahaa sidoo xeerku dhigay xeer number 23 wuxuu sheegayaa xilka qaadista maayarka in laga codsan doono oo isaga loo gudbin doono waraaqda isagoo sida xeerku sheegayo 3 cisho gudahood ku qaban doona fadhi aan caadi ahayn oo xilka qaadista maayarka marka maayarka waanu u gudbinay warqadii waana naga aqbalay waxaanu ku sugaynaa 3 cisho xeerku wuxuu sheegayaa haddii 3 cisho wax ka 3 cisho u dhaafo maayarku in bada saabku uu xaq u leeyahay inuu isaguna 5 cisho gudahood uu ku qabto kala fadhiga aan caadiga ahayn ee maamuska xayuubinta maayarka waxaanu sugaynaa sharciga marnaba intii aanu u socday waxa weeyaan khilaafkan golaha deegaanka wax talaaba oo sharci darro ma aanan qaadin cadaymaha iyagu way dhameystiran yihiin inuu maayarku musuqmaasuq ku kacay cadaymaha iyaga waanu haysanaa waxaanu diyaar u nahay hay'ad kasta oo u baahan in laga qanciyo inaanu ka qancino halkaas ayaa sheedo marsaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cisho markuu maayarku qaban waayo haddii 5 cisho bada saab ku qaban waayo waxaanu diyaar u nahay maadaama aanu nahay aqlabiyadii golaha inaanu halka ku doorano